Su'aasha 16aad waxay u dhacay sidan: Probability of an event waqdaca ihtimaalaadku waa A aanoo qoran wuxuu ka yar yahay ama la eg yahay 0, wuxuu ka yar yahay ama la eg yahay 1. P waxaa inoo qoran probability of event waqdaca ihtimaalaadka wuxuu ka yar yahay 1. C waxaa inoo qoran probability of event waqdaca ihtimaalaadka wuxuu ka yar yahay ama la eg yahay 2. D waxaa inoo qoran probability of event equal to waxay la mid tahay 0. haddaba markaas oo qaadanaysay probability of event waqdaca ihtimaalaadka waa mid u dhaxeeya 0 iyo 1. waxaa saxa meesha ay ku qoran tahay A probability of event less than or equal wuxuu ka yar ama la eg yahay 0, wuxuu ka yar ama la eg yahay 1. waxaa sax ah halka ay ku qoran tahay waayo probability-ga wuxuu noqon karaa 0 or 1. markuu 0 noqdo uncertain loo yaqaana, waa wax aan cayinayn. markuu 1 noqdona certain loo yaqaana. daba su'aasha 17aad waa integration. 17aad waxay leedahay integration calaamad integrationka qoran x square dx is integrationka x square waa x cubic over 4 plus c bx cubic over 3 plus c cx over 3 plus c dx plus c. daba sabuurada aan wada aadno, sabuurada aan wada tagno, waxaan leenahay su'aasha 17aad halkaan aan ku xalinaynaa. ila socda ardaydeeda, ila socda. su'aasha 17aad, su'aasha 17aad integration integrationka qoran x square dx is waa hadda waxaa leenahay marka sharciga isticmaalaynaa, formulada isticmaalaynaa. integration waaye, wuxuuna kasii yahay indefinite integration. sharcigii indefinite integrationka wuxuu ahaa, sharcigaas wuxuu ahaa powerka hal ku dar jibaarkan hadda kor ku qoran x square waa x noo soo qaad, jibaarka hal ku dar, jibaarka hal ku dar. wixii aad kor saartayna waxa kor ku saaranna hoos keen, oo kor waxaa noo saaran 2 plus 1 hoos keen. sharciga uu isticmaale 2 plus 1 dan plus c dhe plus c da sharci waa equal x ka soo qaado, labada jibaarka 1 ku dar 3 over 1 plus 2 na 3 plus c plus c. sharciga integrationka ku caliyo. integration waa su'aashan waxayna kasii tahay indefinite integration. waxaa isticmaalay sharciga rulkeeda. sharcigeeda waxa waaye jibaarka hal ku dar, wax kor ku saaran hoos keenso, hoos ku darso, kadib balaasiide. intii isticmaalay jibaarkan wuxuu ahaa 2, hala ku dar waa 3, inta 1 plus
waxaa kor saartaa hoosna kuu soo baxay waa 3x cube over 3 plus c. haddaba waxaa sax ah meesha ay ku qoran tahay x cubic over 3 plus c. haddaba su-aasha aan u noqono waxaan dooranaynaa midda saxda ah. waxaa sax ah b oo x cubic over c x cubic over 3 plus c. midda saxda waa b, markaasaa dooranay. su-aasha 18aad waxay leedahay iyaduna waxay u dhacay sida if haddii sin theta ay la mid tahay 3 over 5 and cos theta ay la mid tahay 4 over 5 find sin 2 theta. waxaa lagu siiyey sin theta iyo cos theta. sin 2 theta lagu weydiiyey. dhowr jawaab ku qor. jawaabta koowaad waa 24 loo dhigo 25. jawaabta labaad 7 over 25. saddexaad waxaa ku qoran 31 over 25. d waxaa ku qoran 4 over 5. haddaba sabuuradda aan wada tagan markaan xalino jawaabta saxda noo soo baxdo ayaan dooranaynaa insha allah. ila soco. su-aasha 18aad su-aasha 18aad given analysis sin theta. sin theta sin theta 3 over 5 analysis 3 over 5 waxaa kaloo lagu siiyey cos theta waxaa lagu siiyey 4 over 5 iyaduna waxaa lagu weydiiyey sin 2 theta. sin 2 theta. sin 2 theta double angle formulaha waxay leedahay hal qaacido. qaacidadiyaa soo qaadanayna leenahay sin 2 theta waxay la mid tahay sin 2 theta waxay la mid tahay 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta. sidoo kale waxaa leenahay marka 2dan soo qaado. 2dan soo qaado waa constant number waaye. sin theta waa nala siiyey. sin theta waxaa nala siiyey 3 over 5 aa nala siiyey. 3 over waa ku bedelaa by substitution aan sameynaa. 3 over 5 bracket cos theta-na waa nala siiyey waa 4 over 5 4 over 5 whole square. fractionkaaga markuu noqdo number and fraction waxaa la sameeyaa multiply denominator. sareyaasha isku dhif labadan sare isku dhif 2 times 3 waa 6 noqonay 6 over 5 6 over 5 times bracket ka soo qaadan kartaa isku dhufashana waad u bedeli kartaa 4 over 5
hoosna waxaa noo yaalo 5 haddaba waxaa leenahay marka multiplication waaye labada sare isku dhufo labada hoosena isku dhufo 6 times 4 waa 24 divided by 5 times 5 no waa 25 over 25 noo soo baxay hadda waxaa saxa meesha ay ku qoran tahay 24 over 25 hadda warqadda aan wada aadno waxaa saxa 24 of 25a su'aasha 19aad ee statement orah of the form ee qaabkan if b then q is correct if b then q is correct leeyahay if b sabuurda aan tagno if b then q is correct su'aasha 19aad if b then q is correct waxay qoran tahay if b dan see loo qoraa if b then q is correct waxaa loo yaqaanaa a e b iyo c qoran a waxaa qoran implication p waxaa qoran conjunction c waxaa qoran equivalent d waxaa qoran condition hadda marka then haddii aad arkays waxa waaye implication as if b then q then aa soo gasho meesha saa darteed waxaa saxa meesha ay qoran tahay implication aan dooranaynaa implication meesha ay ku qoran tahay midda saxda ah anoo qor implication a as ah implication waa jawaabta saxda conjunction sax ma igu marka saas inuu fahanto waa su'aasha 20aad the exact value qiimaha saxda of sin 75 qiimaha saxda ay leedahay sin 75 is waa 1/2 a 1/2 e e 1/2 f radical 6 minus radical 2/4 g waxay leedahay radical 6 plus radical 2/4 d na waxay leedahay radical 3/2 daba sabuurada aan wada tagno waxaan ku xalinaynaa sabuurada su'aasha 20aad exact value waxaan la weydiiyey sin 75 degree compound angle formula usoo noqono compound angle formula sin 75 degree compound angle formula waxay lahayd 6 qaacido haddaba tan ku habboon sum waa laba angle oo special angle oo marka la isku daro keenayso 25 ma jirta haa waa 45 iyo 30 xalena marka sin 45 degree plus 30 degree oo u dhiganta sin a plus b ee u dhiganta sin a plus b kan wuxuu dhignaa a kanna b haddii sin a plus b ku fureyna sin a plus b waxaa lagu heli jiray sin a cos b plus cos a sin b qaabkii ayaanu fureynaa kan a waaye kanna b waaye waxaa leenahay marka sin
sin a waxa u taagan 45 sin 45 degree sin a waa qornay cos sin a cos b ahayd cos ina waxa u taagan 30 degree balas waa addition waa balaskeeda yahaan sinka isma bedelayso coska oo kale maahan cos a eeda waxa u taagan 45 degree cos a sin b b na waxa u taagan 30 degree hadda waa ku bedelanaynaa sin 45 maxay kula mid tahay sin 45 waxay kula mid tahay radical 2/2 radical 2/2 radical 2/2 waxay kula mid tahay cos 30 na waxay kula mid tahay radical 3/2 plus cos 45 sidoo kale waxay kula mid tahay radical 2/2 divided by 2 times sin 30 na waxay kula mid tahay half sin 30 waxay kula mid tahay half double equal radical 2 times radical 3 labada radical kasoo qaado 2 times 3 waa radical 6 labada hoose multiply denominators waa isku dhufan laba denominator isku dhuf 2 times 2 waa 4 plus radical 2 times 1 waa radical 2 nasba doorashada isku dhufashada waa radical 2 divided by 2 times 2 na waa 4 labada hoose same denominator markay noqdaan waxaa sameeyaa take 1 halka qaado labada hoose labada 4 hal 4 ka qaado labada saran isku dar lana radical 6 plus radical 2 waxaa sax ah meesha ay ku qoran tahay radical 6 plus radical 2/4 daba aan isla aragno waxaa sax ah meesha ay ku qoran tahay g radical 6 plus radical 2/4 part 1 su'aalihii cycle ka ahaa intaas ayay inooga siman yihiin